بسم الله الرحمن الرحيم waxaan bilaabaneynaa mawduuceennii maanta mawduuceenna ugu horeeya ee maanta wuxuu noqonayaa fidnada social media iyo sida looga hortagi karo iyo waxoogaa inaan ka yartaa taabanno bal sababaha loo abuurayo ama maxaa kalifaya dadka abuuraya fidnada iyo bal waxyaabahan maanta socda waxaan nahay kolley dad muslimaan nahay dadka muslimka ah kitaabku ilaahay noo soo dejiyey inaan ku dhaqanno marka haddii xeerarkii adduunkana aynaan ku dhaqmaynin kitaabkiina aynaan ku dhaqmaynin dee bini'aadmigu xoolaha wuxuu kaga duwan yahay waa inuu jiro qaynuun qabanaya marka hadduuna qaynuun bayna qabanaynin waa dhibaataynteeda leeg maanta deegaanka waxa ka socda markaad eegto qur-aanka macaanidiisa markaad sii dhex gasho adigoo rumeeyey yaad haddana kolba mataqaanaa macaanidiisu markay kuu sii dhidhanto waad sii rumayni maanta deegaankeena dhibaatada ka socota markaan eegno waxay ku qotontaa aayaddan qur-aanka ah oo ku jirta suuratulxujuraat aayadda 6 inay tahay baan filaya aayaddan markaad eegto maanta qaab dhaqanka iyo waxyaabaha social mediaha ka socda iyo dhibaatooyinka iyo fidnada la abuurayo aayaddanaa ku qotontaba maanta habdhaqankeenna guud ahaantii ilahay wuxuu yidhi subxaana wa tacaala yaa ayuha aladiina aamanuu in jaa'akum faasiqun binaba'in fatabayanuu an tasiibuu qowman bijahaalatin fatasbixuu calaa maa facaltukum naadimiina waa arrinta maanta deegaankeenna marka dhinac walba aad kaga timaado ama suuqa waxa laga leeyahay ha noqoto ama social media waxa laga leeyahay ha noqoto aayaddanaa ku qotonta fitan baa la abuurayaa fitantaa markaa iminka fitanta iyo dilka fidnadaa ka xun waayo dilka shaksi iyo labiyo xun baa ku dhiman kara laakiin fidna markuu qofku maanta social mediaha ka abuuro intaasoo milyan oo qof buu wax u sheegi karaa fidnadii markaa intaan la xaqiijininba intaasoo qof baa dhiman karta dadka un baa daalay oo maadaamay iska soo dhibaatoodeen daalay maanta social mediaha waxaa laga abuurayaa nidaam waxaad samaysmay kooxo cusub oo professionalah oo si khatara loo tababaray oo fidnada u dhalinaya si dadka looga dhaadhicin karo photoshop bay samaynayaan akoonnadii dadka ayaa la afduubaya haddii la doono kuwo isaga u eg baa la samaynaya akoonkaaga oo magaca isbeelinka iyo wax walba midna una isbedelin baa la samaynaya kolkaasaa waxa doonto lagugu soo qoraya dadkiina waa loo soo bandhigaya kooxahaasi waxay sameeyaan markaa kow fidnada laba arrimood oo fidna dhalin karaba way sameeyaan waxyaabihii hore ee dadka ka dhex dhacay bulshada dhowr iyo 20 sano dee waan ogeyn wixii waddanka ka soo socday isku dirkii dilkii kufsigii dhicii dumarkii xitaa la kala guursanayey intaasoo nin baa dumarkoodii la guursaday oo laga fasaqay waxyaabihii noocaasa haddii bulshada lagu soo faarfaaro bal ka warrama ilah baa idinku dhaariye dadka noocaasa ee wixaa soo faarfaaraya maxay u jeedaan iyo waxyaabihii dhacay meel kasta marka halgan dagaal uu ka dhaco dee dagaalka sharcigii baa lumaya waxyaaba fara badan baa jiraya wixii noocaas ahaa waa hal wado oo dhibaato lagu abuuraya waa lasoo faarfaaraya maalin walba waxa dhacana si kale loo turjumaya oo qaab kale loo waxaynaya sharci kuwa qabta ma jira miya sharcigu ma qofka miskiinka unbuu qabtaa haddaba sharciga noocaas xaggey ka keenayaan dastuurkii waa kan ma dhigayo diintii waynu aragnaa oo qofku iska badaa dhibaato iyo wuxuu abuuree hal ere oo khayra waddada haddaad ka qaaddo qodax intaasoo xasanaad baa lagu qoraya 10 baa lagaga dhigaya waa lagu lamalaabaya sharcigii dowladdu ay dejisayna waa kan waxyaabihii kale civic educationkii iskuulka lagu baranaya waa kan kani waa graadka 9aad weeyaan kani waa graadka 11aad weeyaan kani waa graadka 10aad weeyaan waxyaabihii kale ee anshaxa bulshada la xidhiidhay iyo civic educationka iyo barbaarinta iyo muwaadinimada kuwaas weeyaan proclamationada kale ee soo baxa ee maalinlaha ama toddobaadka ama bisha soo baxana waa kuwan laga lunjeexayuun kuwa ka gidisan maaha haddaba qaynuunka noocan iyo waxna hagee ka keenayaan dee qaynuun ma jire waa danaysi weeyaan nidaamkii shalay loo socday nidaam la mida ayaa loo socdaa intaasoo akoon oo fidna laga abuuraya jirta intaasoo shaksi sidii waqtigii hore dhici jirtay maanta haddaad manaafacaad u baahan tahay 4 qodob baad aad u wadwadi oon la falcaaay anu ma aqaano mataqaana oon lafna shakhsiyaad ka midana waad xacaayi
maaday nin la yidhaahdo aad baad u hadalhayni haddaan nin la yidhaahdo aad baad u hadalhayni on laf waa kana waxyaabihii hore u dhacayna aad baad u hadalhayni waad soo qufi wax kastoo maanta dhaca hadduu nin gaari jiro siyaasad baad la xidhiidhini oona laf baa marisay hebel baa mariyey maxay baa mariyey nin ta kale qofku markuu iska yahay qof reebaadiyo wuxuu loo dhiibaya wuxuu ka xishoonaya ma jiro qof aayar xuquuqdiisii iyo muwaadinimadiisii adeeg xumo ka hadlaya yaa wuxuu arkayaa iska dhihi dadka dawladda ka soo horjeeda ka dhac ilaahay idinkii bal waxa reebaadiyaha agno kuwii la shaqayn jiray nin la yidhaahdo gabre oo Soomaaliya fadhiyay oo sirdoonka u qaabilsanaa Ethiopia dadkii la shaqayn jiray yaa maanta doonayna inay fidna inay geliyaan haddana marka waxaan ka digaynaa xageed ku aragtay waxyaabahan xalay aadka ula yaabay social media la dhex waday anu ma aqaano waxa jira nin cisho dhaweyd la qabtay oo la yiraahdo gafdiid shakhsiyan anigu ma aqaano waa laf baa laygu yidhi marka anigu nidaamka isaga loo qabtay iyo ma taqaanaa de xeerarka dawladda waxa u taala cidda faraha ku haysa anigu isaga de baaritaankiisa iyo nidaamkiisa iyo waxa la leeyahay uu soo qoray waa been iyo run midna ma oran karo waayo dadkii faraha ku hayay iyo booliska iyo ciddaas u taala laakiin waxaan khalad u arki kara waxa weeyaan oo ka baxsan dastuurkan qodobkiisa 16aad iyo kuwa fara badan oo kalaba qof maxbuus oo la qabtay in akoonkiisa la isticmaalo oo wax lagu soo qoro waa wax sharciga ka baxsan weeyaan xitaa xilliga Cabdi Maxamed Cumar qofka waa laga qaadan jiray sir baa laga baaran jiray waxyaabo laga baaran jiray mobilada waxyaabaha telefoonada waxa laakiin akoonkaaga lama isticmaali jirin de qof xidhan sharciga fasaxaya muxuu in akoonkiisa la isticmaalo oo wax lagu soo qoro waa sharci darooyan waxaad garanaysaa markaa waxa jira meesha wuxuu yahay in wax la abuurayo waan ka xog badnahay marka waxaan leeyahay fitanta la abuurayo ee maanta deegaanka ka jirta Soomaali maanta sawirkeeda ninka u baahan aayada Quraanka uu soo qaadanaya fitan baa la abuuraya markuu dib dhacana eeg nin baa fidna abuuraya dad baa iyagoon wixii hubsanin bay dib sameynayaan kuwii dibka markay sameeyaan kuwa kalena iyagoon hubsanin bay dib sameynayaan fitantiisaasay ku gaadhaysaa wax la soo qoray bay maanta intaas oo qof u dhiman kartaa dembiga yaa iska la markaa mas'uulka u diraya iska le kuwa ag fadhiya iska le ka bumbuunaya iska le ka sii shargareynaya iska le ka u riyaaqaya iska le waxyaabaha noocaas oo kala ah Soomaali in la dagaalamo loo baahan yahay war waxa noocaas oo kala ah qofka qoraya la yaabo xishoha lagu yiraahdo haddana dhibaatada jirta kii noocaas ahaa yaa dadkii xishooda ku leh bal dhibka kale jiraan idin sheegay kii waxa sameynayay ee dhibka abuurayay alla ilaahay dulqaad badanana waxyaabaha ilaahay dulqaadkiisa ku tusaya qof walba dambigiisa maalinun baa la sugayaa maalinta baa loo soo bandhigaya ruuxi dhibka abuurayay ee maanta dhibka sameynayay ee bulshada isku dirayay yaa ilaahay baryaya inuu dhibkiisan u hirgeliyo oo ilaahay ugu guuleeyo alla ilaahay ugu guuleeyo arinta balag ilaahay markaa gamcaaga naga ceshana lama dhahayo dhagaxna korka lagaga soo tuuri maayo uu baryaya kii kale miskiinkaana ilaahay buu baryaa uu leeyahay ilaahu ka sharkiisa iga nabadgeli labadiiba ilaahay ba gamcaha hoos haystaan marka dadkii sharka abuurayay ilaahay quraanka hal aayado kala hadaan ku dhaqano taa kaleeta inaga anfici lahayd ilaahay ummadan wuxuu ku tilmaamay ummadda ugu khayr badan ummadihi sababta ay ku mutaysteen waa hal arrin kaliyeeta waa ummad wixii shar iyo wixii xumaanana iska nahayinaysa wixii khayrana isfaraysa inta kaliyeeta hadaan qaadano deegaankeennu wax kale uma baahnaan ayada kaliyeeta hadaan ku dhaqano hadaan wixii shar ah qofka wada aan leenahay war hebelow jooji wixii khayrana qofka wada lagu guubaabinayo waxa soo dhan ma dhaceen marka mawduucan ma rabo inuu ila sii daba dheeraado laakiin waxaan ku soo koobayaa dadka sharka wada odayaashu ha qabtaan dawladdu iyada adeegsanaysa taas definitely waa xaqiiq weeyaan ujeedada ka rabto iyada ka gungaari doonta iyada bal dhibaatada kale jirta ninkii xukunka cidii haysay ee nabadda doon lahayd dadka isu keenaysay baa dadkii kala geenaysay anu waxay ka faa'iideyaan ma garanayo nin baa yidhi ma taqaanaa nin dameer dabadii ka degay meel u dhaantu waayey marka ma garanayo ma waxay waayeen fidnadan nidaam u dhaamo oo ay wax ku xukumi karaan miya wanaagu ma dhaamo miya bulshadu way soo daashay dhibaato ma baahneen marka bal fidnada ha abuuraane nin kala yidhi ma taqaanaa meeshaad ka gashaan baan ka geli dhibaatada ha abuuraan hadday cirka ka geliyaan dee inaguna cirka un baynu ka geli
marka ajandana halkaasaan kusoo gabagabaynaya